qiimo badan badlaane burburkii markuu dhacay baadidoonkii qarannimo halkii laga bilaabe soobay tisaa tahay wax kuu galay iladu baad ku sidataa qiimo badan badlaane burburkii markuu dhacay baadidoonkii qarannimo halkii laga bilaabe soobay tisaa tahay wax kuu galay iladu baad ku sidataa oo lagu xarig jarayo gurigii maaliyadda ee gobolada Sanaag iyo Highland oo laga hirgeliyay degmada Baran runtii wuxuu qayb ka yahay waxqabadka ballaaran ee dawladda hadda uu hogaamiyo madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxqabadka ballaaran ee laga furiyay deegaanka gaar ahaan degmada Baran aad iyo aad baan guud ahaan dawladda uga mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan iyagana u mahadcelinaynaa mas'uuliyiinta maaliyadda ee gobolka waxaan leeyahay wasaaradda dadaalka badan oo aad samayseen iyo maaragtay gurigan waad ku soo kordhiseen iyo waliba shaqooyin kale oo badan gobolka aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waxaan mar labaad u mahadcelinayaa madaxweynaha dawladda Puntland oo maanta laamihii dawladda ee gobolka Sanaag wax yar maaha ee ay ku jiraan guryo hanti ah waxaa maanta horta sharaf weyn ah aniga oo runtii magaaladan aniga oo ardaya oo yar joogi jiray maantana aan furayo qayb ka mid ah dhaqaalaha la geliyay ama guryaha la dhisay ee dawladdu ay waliba wasaaradda maaliyaddu ay gelisay inaan maanta ka ahay joog oo aan furayo waxaa maanta kale oo ii ah sharaf inaan laba meelood oo ka mid ah degmada Baran gobolka Sanaag aan soo dhagax dhignay oo ah kastamka Hadaftimo oo dhinaca waqooyiga iyo guryaha lagu darayo garoonka diyaaradaha ee degmada Baran marka waxaan oran lahaa waxaas oo dhan waxaa hirgeliyay ama runtii loo baahan yahay in la eego ama la ogaado waa dawladnimada haddii aanay dawladnimadu jiri lahayn waxaasi dee kulley shacabkuna ma sameeyeen dadkuna isumaba yimaadeen waxna lama qaadi kareen waxaan marka oran lahaa horta dawladnimada aynu adkaysano waa 25 sano baynu maanta waxaynu u taaganahay inaynu furno waxyaabihii ay dawladdu hirgelisay oo hirgeliyay madaxweynaha hadda jooga dawladda Saciid Cabdullaahi Deni oo runtii juhdi badan geliyay inuu gobolka Sanaag iyo dhammaan Puntland oo dhan inuu runtii wax ka qabto waa intaas aynu ugula sii dhawaano shaqada waxa loo baahan yahay inaynu duuduub wada qabano annaguna wasaaradda maaliyadda ahaan iyo dawladda Puntland baan ku hadlay magaceeda waxaan diyaar u nahay meel kasta oo dalka ka mid ah Puntland leedahay inay laamina gaaro dhismo kasta oo wasaaradeedna uu gaaro xaruntii wasaaradda maaliyadda ee gobolada ama 5 dawladood baa soo maray Puntland dawladda ugu horeysay oo hirgelisay wasaaradda maaliyadda waa dawladda hadda jirta aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa dawladda Puntland oo madaxweynaha ka yahay Saciid Cabdullaahi Deni halka wasaaradda maaliyadda waxa dhisay wasaaradda maaliyadda kala dhistay wax gacan kale oo ama taakuro kale ma jirto farxad bay noo tahay maanta muuqaalkan wasaaradda naga dambeeya oo maartay bilicda iyo muuqashada hagar la'aanta leh shaqadii loogu talagalay ugu fushay waa farxad gaar ah in maanta wasaaradda maaliyadda Afland sana kadib ay degmada ku shaqeynayso xafiis ay leedahay aan jaarahay intaan ay u soo dhawaadeen mas'uuliyiinta wasaaradda heer gobol inay maartay duruufo adag soo maraan oo maanta laakiin ay haystaan guushoodii wasaaradda maaliyadda waa inay dib u dhis aad u badan badalka socda oo ay hormuud u tahay oo maartay kaabayaasha dhaqaalaha ah insha Allah waxaan rajaynaynaa meelaha kale degmooyinka kale iyo gobolada kale inay gaadho insha Allah maadaama labada gobol ay xisaabaadkoodu ay ku midaysan yihiin halka ayna yihiin laba degmo oo maartay caasimadu waa labada gobol inta kale ay ku xigto insha Allah iyadana mid la midatan ay ka soo bixi doonto insha Allah
waxaan leenahay shaqadii aad hayseen dardargelinteeda iyo horumarinteeda iyo sidaa wax u wadaan ayay muujinaysaa dhismaha halka laga dhisay iyo kii aan soo dhagax dhignay oo garoonka laga soo dhagax dhigay oo lagu kordhinayo garoonka intaba iyo kuwa kale oo dhamayska tiran customkii shalay la soo dhagax dhigay waxaasi waxay muujinayaan maaragtay shaqada dawladdu ay ka wado gobolka Sanaag iyo dawladnimadu si ay u hirgelayso si horumar loo helo dawladnimadu waxay ku jirtaa horumarku wuxuu ku jiraa dawladnimada